halkan waa xarunta gargaarka Soomaaliyeed ee loo yaqaan SB8 oo ay farsamooyin gacan ku bartaan qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda. xaruntan ay wax ka bartaan boqolaal Soomaali ah ayaa waxyaabaha ay gacantooda ku sameeyaan waxa ka mid ah saabuunta qoyska, shaambada madaxa lagu dhaqdo, oomada, farshaxanka iyo barashada harqaanka. bismillaahi raxmaan magacayga waa Xaliimo Sheekh Xuseen. hadda waxaan bartay si fiican u toli karaa dirac iyo dirac bas waxaan oo dhiman saakooyinka. alxamdulilah. sidoo kale xaruntan lagu barto xirfadda gacanta ayaa qayb ka mid ah dumarka lagu baraa farshaxanka, waxyaabaha laga sameeyo kuulasha iyo sameynta boorsooyinka, jijimaha iyo katiinadaha. waxaan ahay macallimada barta kuulaha ardaydan kuulaha barta ardayda waxaana ku bartaan iskoolka SB8 ee ku yaala Kampala. waxay bartaan ardaydu 4 beri Isniin, Talaado, Arbaco, Khamiis. tan waa boorso maadartan, kan waa fruitka lagu bartaa saxan la yiraahdo fruitka lagu bartaa. sida kan oo kale waxaa la saartaa tuuliidka iyo miisaska, kuwana waa dhago jinjimo iyo qoorta. sidoo kale kuwana waa lamid, kuwana waa boorsooyin. naqshadeynta cilaanka ayaa sidoo kale gabdhaha lagu baraa halkan. iskuulkaana dhiganaa waxaan ka baranaa skills badan oo kala duwan. hadda cilaankii baan baranaynaa. kulay waxaa gacanta markay noo fariisto daawamadawista u gudbi doonaa. skills kale fara badan waa laga bartaa sida ii sheeg cunto karinta, harqaanka, kombiyuutarka. skills fara badan waaye. soo waxaan rajaynayaa dadka dhan inay ka faa'iideysan doonaan. fursad qaali ah waaye. aad ugu mahadcelinaynaa dadka waxa waaye fursadan ii sheeg dahabiga aan soo siiyay. way mahadsan yihiin. Ilaahay ajar badan iyo xasanaad badan ha ka siiyo. maamulaha guud ee xarunta gargaarka Soomaaliyeed ee dalka Uganda, Maxamed Xuseen Cali, ayaa ii sharaxay waxyaabaha lagu baro muwaadiniinta Soomaaliyeed halkan. aan bilawnay inaan barno skills kala duwan sida markaan ka bilaabo luqadda Ingiriiska oo fududeynaysa ummadda dhan inay ka wada faa'iidaan oo ay fududaato xiriirka dadka waddanka ku nool iyo ummadeena. waxaan ku xijinay harqaanka dharka si loo tolo. waxaan ku sii xijinay hadduu Ilaahay ku royahay electricity-ga sida korontooyinka guryaha loo geliyo. waxaan ku xijinay tubooyinka biyaha si loo xiriiriyo guryaha ama xaafadaha loo geliyo. waxaan ku sii xijinay hadduu Ilaahay ku royahay first aid-ka gargaarka waxyaabaha emergency-ga xaafadaha ka dhaco. waxaan kala ku darnay business-ka, basic business-ka, asaaska sida ganacsi loo bilaabo ummadda cilado badan ka jirto meeshaas si ay u helaan aqoon dhameystiran ay ganacsigooda ku hogaamin karaan. crafts farshaxanka waxyaabaha kuulaha laga sameeyo sida boorsooyinka loo design gareeyo. haddii Ilaahay ku royahay farantiyada, jijimaha noocyada kala duwan, noocyada calanka laga dhigo ama magacyada lagu qoro ama kan dumarka caadiga ay uga ku xarakoodaan dhagdhagaha katiinadaha. sanadkii 2017 ayaa la furay xarunta gargaarka Soomaaliyeed ee dalka Uganda ee loo soo gaabiyo SB8 waxaana ujeedadu tahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda la baro farsamada gacanta si ay shaqo abuur ugu noqoto isla markaana ay noloshooda ku maareeyaan. Yusuf Maxamed Macalin Kashmiir, raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Kampala.